gabadhana u jeediyeen iskuulay waaye xilligay fasaxatay waxay ugu faa'iideysataa inay ubaxyadan wadada ku iibiso maalin iyadoo shaqadeeda ku guda jirta waxa uu imaanayo midoo gaari wadato oo rabto inay ubax ka iibsato laakiin hal mar labadoodu way is aqoonsanayaan maadaama si wada jir u dhiga jireen iskuulka hoose kadib midaan intay gaariga ka soo degto anoo u maleeyay inay salaami rabtay waxay bilaabaysaa inay shaqadeeda ku tilmaanto mid xun iyadoo weydiinaysa sababta uga shaqaynayso waxay ugu jawaabaysaa waa shaqaystaa waqtiga yarka oo fasaxa ay waana ka faa'iideystaa iyaduna intay ku qosashay mar kale waxay weydiinaysaa waxaad ii sheegtaa sababta aad iskuulka u dhammeyn la'dahay maadaama waqti hore isla ahayn dugsiga hoose markay u jawaabi weysana waxay ku dhehaysaa waa ku caawinaa maadaama saaxiibaday aheedee 3 xabo ubaxa isii marka ay ubaxa u dhiibtay waxay u sheegaysaa inay gaariga lacagta ku soo dhex ilowday markii intii u soo qabanayso ay sugto laakiin hal mar bidaa waxay bilaabaysaa inay gaariga meesha ka wadato iyadoo saaxiibadeed lacagtiina ubaxiina ka qaadatay intaas kadib midaan hadalkii ay saaxiibadeed hore ku dhahdaa niyadda ka jebiyey maanta dhanna maskaxdeedu ku soo noqonayay hadallada ay saaxiibadeed ku dhahday heer waxay gaarsiiyeen inay ku fikirto inay isdisho maadaama arrintaasi saa'id ugu niyad jabtay waqti badanay waxay taagneed laamiga iyadoo rabta inay gaari isku dhigto si ay isku disho ugu dambayna waatan iyadoo go'aan qaadatay laakiin naagtan kale aragtay waxay gabadhu sameyn rabto iyadoo meesha ka soo badbaadisay intay ku oroday midii badbaadisay waxay weydiinaysaa sababta ay celisay maxaa waaye aniga inaan sii noolaado ma rabiye laakiin maamadan waxay u sheegaysaa inay 2 daqiiqo sii sugto ayna dib ugu soo laaban doonto aysan meeshan ka tegin xoogaa kadib waatana iyadoo u soo laabatay oona weliba cunno u soo gaday waxay u sheegaysaa inay marka hore cunto si ay maskaxdeedu ugu soo laabato wax yar kadibna waxay weydiinaysaa sababta ay rabtay inay isku disho waxay ku dhehaysaa aniga si iskay iskuul isku geeyay weliba iyadoona qofna i caawinaynin waalidiinteedu way dhinteen waxaa isku dayay inaan shaqaysto aana lacagta iska bixiyo laakiin arrintaas way iga fashilantay hadda kadib maamadu waxay ku dhehaysaa haddii waalidiintaadu ay soo noolaan lahaayeen ayna arki lahaayeen sidaa u dadaashay ma og tahay siday u farxi lahaayeen xoogaa badanay la hadleeda hadalkeeda intay dhiirigelin ka qaaday waxay siinaysaa ubixi ay gadeeda si ay uga mahad celiso dhinaca kale waatana midii iyada ubaxa kala soo carartay oo ubixi siinayso midkoo saaxiibkeed ah midkaana saaxiibkeed keliya maahan iyo shirkaddan ay ka shaqaydo isagaa iskale booskeeda waa macnaha wuxuu ku dhahaa shirkadeenna maanta waxaa u soo socda macaamiil qaali ah marka macaamiishaas waa inaad si fiican u soo dhaweydaa shaqadaasna adiga iska leh xoogaa kadib shirkadda horteeda waxay ku aragtay midii ubaxa gadeeda iyo saaxiibadeed ahayd waxay ku dhehaysaa ord meesha isaga taga waa ku ogahay macaamiisha ii soo socotaa waxaa rabtaa inaad lacag badan iga qaaddo ubaxan yarka isla markaas midkii booska intuu meesha soo gaaro gabadha wuxuu u sheegaya inay meesha isaga tagto ubaxyada dhanna uu isagu ka iibsanayo midaan wuxuu ku dhahaa isdiyaari macaamiishu way soo socdaane waa kana isagoo ubaxyadii dhan ka qaatay lacag badanna siiyey maadaama uu rabo inay meesha isaga tagto haddiiba daqiiqada yar kadib meesha waxaa soo gaaraya gaarigan oo ay saarnaayeen 2 gabar oo ah macaamiisha qaaliga ah ayay sugaayeen marka ay soo dhaweeyaan kadib waxay ku hadlayaan luuqad kale maadaama ay waddan kale ka yimaadeen midaana waxay iska dhigaysaa inay hadalkooda fahantay waxayna bilaabaysaa inay ku hadasho hadalka ay ku hadlayaan camal laakiin iyagu ma fahmayaan iyagoo qaata kala taagana waxaa imaanaya gabadhii ubaxyada iibinaysay kuwaan macaamiishaana luuqadooda si wanaagsan ugula hadle intaas kadib iyadaa si toosa waxay ula wareegtay shaqada turjumaadda kuwaan macaamiishaana si wanaagsan ula shaqeeday ilaa ay ugu dambayn macasalaameeday maadaama ugu soo dhammeeday shaqadii si wanaagsan kadib midkan booska wuxuu bilaabaa inuu gabadha si kaliya laaba ugu mahadceliyo maadaama ay ka badbaadisay maanta baxar oo geli lahaay wuxuu ku dhahaa hadda si kumeel gaar ah noola shaqaynaya markii ay iskuulkaaga soo dhammeedana si toosa turjumaan kuugu qaadaa ugu dambayna muuqaalkan wuxuu dhammaanaa midaan oo ka cabsanayda inay ibir u soo baxday ee hadda halkaas soo gaartay leegnoosa